hooyadii guriga hadday timaado su'aasha qaraabada hadday timaado qaraabada dhanka gabadha ka socotana guriga xuquuq bay ku leedahay gaar ahaan hadday waalidka yihiin qaraabada xagga ninka ka socotana guriga xuquuq bay ku leeyihiin gaar ahaan hadday waalid yihiin ma jirto wax la yiraahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firi bay guriga u fasaxayay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waa sharci kufri waa sharci islaam ma hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyaga iskale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anta wa maaluka li abika nin buu la hadlayay wuxuu ku yiri adiga iyo xoolahaagaba aabbaha baa idin leh hooyadu waa ka sii xaq weyn tahay hadiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ninkaaga ciddii lahayd seebaa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshay waa midda labaade haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa midani nama anfacaysee fur waa lagu eryi marka hooyaan guri u diidi idan halay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin hada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waaye qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu sharri ahwar way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye waa dhaqan la soo minguuriyey oo aan ahayn kii islaamka aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay war miyaynu lahaan jirnay ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah maya ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ninka ha ka timaado hooyo gogasha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale aabba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanaya adeeri dhaafi meel kale u kireen naagta sidaa qabtay in la eriyo waayo